halkan dhibaato ka dhacday dhibaatadana Ilaahay baa keenay subxaanahu wa ta'aala xukuumaddii dalkan ka mas'uulka ahayd gurmad bay soo gaarsiisay way timi asxaabtii gurmad bay keeneen shacabka gurmad bay keeneen laakiin ma aha magacii degmada Salaxley lagu dawarsado waxaynu maanta ognahay lacag aan soo gaadhin halkan in meel walba maanta laga shaqaysanayo haday leedahay Soomaaliya haday tahay East Africa meel walba laga leeyahay Salaxley Soomaaliya uu soo gurmo Salaxley Soomaaliya uma baahna Ilaahay Salaxley wuxuu ka dhigay Somaliland baan ku filan dawladeeda ku filan shacabkeeda ku filan xisbiyadeeda ku filan waxaanu xamar uga baahanay maanta ma jirto sabab maanta magaca Salaxley loogu dawarsado oo ummadda loo kala qaybiyo oo la yiraahdo sanduuqa kii hebel ku rid kii reebelowna ku ridin dhaqan uma ilaahin degmada waxa ka soo jeeda saldanad guuna saldanada Somaliland oo dhan ba ka soo jeeda dadka u tirinay ba ka soo jeeda ummadda ma kala qaybino wixii ummadda kala qaybiyana nabiguna uu nacdal oo uu habaaray anaguna waanu habaarana ummadda in la kala qaybiyo ma jecelin dad quraynu nahay ummaddu waa bulsho qura waa wada habroodaag waa wada walaal ma aha in aynu dhibaato markaynu dhacdo aynu ka faa'iideysan miisiga laxanka intaanu saarno wax kala ka dhigno ma aha inaan xukuumadda ku cambaarino iyadoo xukuumaddu waxba ku lahayn mar haddii xukuumaddu timi oo ay gargaar keeneen in la sugaabeed inta dhamaanayso wixii meesha ka dhacay weyn oogay tacaayid bay ku ahayd gobolkan buu madaxweynuhu qaranka ka soo jeeday Muuse Biixi Cabdiwani reer Salaxley waa inaanu taa ogsoonaanaa waxa weeye ma aha in degmooyinka qaarna roog cas loo dhigo oo la yiraahdo halkan waa oodweynes waxaan ku dhignay roog cas Salaxleyna madaxweynaha lagu aflagaadeeyo ma aha mana aqbalayno Salaxley madaxweynaha afti waa degmadiisu waa tan madaxweynaha marka waxa weeye guriyaha calaamadda la mariyay iidaadu guriyaha calaamadda la mariyay waxaan u aragnaa qalad sadaqadu calaamadu ma baahna sadaqadu uma baahna qabiil iyo in loo kala abtiriyo cidii wax la siinay Ilaahay dirti baa loo siinaya walaalnimo wada dhalasha loo siinaya laakiinse waxaasaan ku siiyay rinjiga casaanka hay mari ama ka buluuga hay mari ama ka oranjiga hay mari adeer waxayna qabta ma aha waa qalad dadkaana xuquuqdooda meel baa laga dhacay inta wax la siiyay midabka marso dadkani waa xor dastuurka xorriyadooda siiyay kalarka doonaan bay marsanayeen jingadooda midab qasabi ma jiro dastuurkeenu muu qasbin midab gaar ah midabada lama kala dooran qof walba wixii uu midabku doono marsanaya waxaan leenahay dadka laga daayo in laga faa'iideysto dhibaatada oo shuruud lagu xidho sadaqada la siinayo sadaqada in la buunbuuniyo ma qurux badna annagu xisbiga wixii qoyar socod baanu nahay halkan qoyar socod baanu ku nimi inta wixii meesha ka socday waanu eegaynay waanu la soconay waxaan leenahay reer Salaxley magaciina in lagu qaraafto maaha degmaduna way isku filan tahay qarankeeda ku filan dawladeeda ku filan ku noqon maayo halka waxaanu sidnaa 700 jingood baan ku wareejinaa maamulka maayarka iyo magaranaysa gudida degmada waxaan iga dambeyn doonaa mas'uuliyiinka hadalka